Assalaamu calaykum waraxmatullah. Dhulgariir dhimasho sababay oo ku dhuftay dalka Jabaan. Kusoo dhawaada daawadayaal xogogaal. Intaynan u gelin muuqaalkeenan maanta, daawadayaal waxaan idiga codsanayaa inaad saartid like, subscribe, kambalelkana furo mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullah. 6 Disembar 2018 jasiirad ku taala waqooyi dalka Jabaan oo lagu magacaabo Hokkaido ayaa waxa ku dhuftay dhulgariir awood badan, iyadoo meelaha qaarna uu dhulku go'ay, taasoo ay guryo badan ku burbureen. Ugu yaraan 8 ruux ayaa ku geeriyootay, halka 40 qof oo kalena la laayahay. Dhulgariirkan uu cabirkiisu ahaa 6.7 magnitude ayaa sidoo kale sababay inuu adeegii korontada uu ka go'o ku dhowaad 3 milyan oo guri kadib markii uu gooyay qalab korontada qaybiya. Musiibadan ayaa timi xilli ay maalmihii la soo dhaafay duufaan khasaare iyo dhimasho sababtay ku dhuftay galbeedka dalka Jabaan. Dhulgariirkan oo dhacay aroornimadii hore ee Saaka ayaa ruxay dhul ku fadhiya 62 kiiloomitir iyo 39 miles oo ku yaala dhinaca koonfurta bari ee caasimad goboleedka Sabotao. Dadkii deegaanka iyo socotadii ku sugnaa gobolkaas ayaa baraha xiriirka bulshada ku shaaciyay sida ay uga argagaxeen dhulgariirkaas. Waxaa sidoo kale ay soo bandhigeen sawirro muujinaya safaf dhaadheer oo lagu jiro bakhaarada raashinka, maadaama ay dadku doonayaan inay guryahooda cunto ku kaydsadaan, iyagoo ka cabsi qaba inay dhici karaan dhulgariiryo kale. Saraakiisha cilmiga hawada ayaa ka digay inay dhici karto gilgilasho daba socota dhulgariirka weyn, waxayna dadka ku booriyeen inay feejignaadaan. Dhulgariirada waaweyn way laba dhacaan inta badan, gaar ahaan 2 ilaa 3 maalmood gudahood. Toshiyuki Matsumori oo ka tirsan waaxda saadaasha hawada ayaa sidaas yidhi, sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee IFP. Waxaynu ku boorinaynaa shacabka inay aad u taxadaraan oo aysan aadin meelaha khatarta ah, ayuu yidhi. Jabaan ayaa ka mid ah dhulgariirada ugu badan ee caalamka, waxaana dalkaas keligii ku dhufta 20%. In ka mid ah dhulgariirada uu cabirkoodu yahay 6.0 magnitude ama wuuba ka sareeya. Wassalaamu calaykum. fadlan haddaad ku cusubtay subscribe inoo saar, like na saar. mahadsanid.